kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba akhyaartaanu hawada ka wada socono meel aad joogtaan oo codkayga iyo muuqaalkayga idin ka soo gaadhay waxaanu idin leenahay cawaysi wanaagsan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee garwaaqso barnaamijkeena habeenkan caawa ah waxay noogu martiya fanaanada caanka ah Sahra Axmed Cabdilaahi waa Sahra Ilays ugu horeyn barnaamijka waan ku soo dhaweynayaa daawadayaal waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan barnaamijkii garwaaqso wuxuu isku rogay kayfanka iyo suugaanta laakiin waxaan leenahay kama marna barnaamijkana waa loo siman yahay Sahrina caawa iyadna way noogu marti habeenkani caawa ah waxaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa fanaanadu safarkii ay dhawaanta ugu baxday dalka Ingiriiska iyo wixii ay kala soo kulantay daawadayaal dunidan aynu ku dulnool lahay waa ay mug weyn tahay waanay midaba badan tahay noolaha ku dulnoolina nolosha ay ku nool yihiin waa sida cirka iyo dhulku inta isku jiraan oo kale shayga waaya aragnimada la yiraahdaana waa aqoon aan iskuul loo gelin jaamacadna aan looga bixin balse laga dhaxlo nolosha waayahayga iyo waqtiga habeenka iyo maalinta isugu jira ee isbedelaya waxbayaan ku sii dheeraanayna Sahra Axmed Cabdilaahi Sahra Ilays iskiin bari maayo oo waa fanaanad weyn oo caana sida aan soo sheegay bal habeenkan caawa waxaan leeyahay maxaad ku salaamaysaa daawadayaasha barnaamijka daawanaya nimcayadeed baad u maadsan tahay caawa waxaan ku salaami lahaa heeso cusub oo nimka soo saaray iyagana عشق سيدي سبا علفك كحوق وين إن كستون كعاشقي سيدا والكعانها لابتيدا كوعولي أياكو سلام يا دك الله إله سهري وروي دميسي سهري لوان مدكو من قرب تشوغا يا ضحيد أو حقا يو دالك إنجريسكا أياد نغا عادي سيدي أياد كتكتي سفر كاغا إنجريسكا nimca yorta aad iyo aad baad u mahadsan tahay safarkan anigu Ingiriiska ku tagay waa kulay safar fanaaniinta oo dhan loogu tala galay in lagu kaxeeyo Soomaalida oo dhan fanaaniintooda ama Muqdisho ha joogaan ama Djibouti ha joogaan ama Somaliland ha joogaan ha ayaa lagu kaxeeyaa marka aniguna kuwaas uma ka qayb galay inaan Ilaahay dadka imika u dhaqdhaqaajiyo ayaan cashuur la yiraahdo Ilaahay khayr ha siiye inantaas fanaaniinta ku qaxaysa runtii had iyo jeer ale de fanaaniintii dhulka Taleeba bay kor soo qaaday waayo iyada la tacaasha had iyo jeer ale de Ilaahay khayr ha siiyo awoodda inta leegna waladeeyo inta soo fanaaniinta Yurub geyso ay waliba damaanadooda qaado ay haddana maxay ahayd de waliba Ilaahay ku guuleeyaa aad iyo aad baan inanta u salaamaya fanaaniinta abaal bay ku leedahay runtii waayahay muddo inta lag ayaad sugayseen inaad ugu baxdaan safarkaasi haday noqoto de fiisihii iyo qabanqaabadii hawshaasi muddo inta lag bay idinku qaadatay wallahi horta runtii ana sanad walba qolaa baxda marka sanadkii aanu baxaynay waxaanu runtii waxa tagaysaa waxa la tagaa Addis Ababa bil baanu joognay oo fiisaha sugaynay inagii wada joognay nimcada Addis Ababa isku aragnay runtii bil aduu kulay waxoogay 2 maalmood meelaha ka dhiman yihiin baanu Addis Ababa joognay oo ku sugaynay ilaahayna markii dambe noo soo fududeeyay iyada laftirkeeda de warwar baa haysteen inta kaxaynayso inta iyada laftirkeeda hawsha way ku jirtay maalintii noo soo dhamaatay Hargeysa dib ugu soo noqonay haddana halkan aanu ka baxnay transit baanu Addis Ababa ku ahayn si baanu London ku tagnay marka 12 saacadood oo diyaarad la saaraado waa markii ugu horeysay bay waayahay waan u soo noqon doonaa muddo sanadaad sugayseen
processku inuu idin soo dhamaado sida miya may marka la doonayo qofka in la kaxeeyo waa loo sii sheegaya laakiin processka intaad marayso ama aad fiisuhu ku imanayo waa maxay ahayd toyeen bilon weeyaan aad sabad joogaysa laakiin dadka inta lagu kaxaynayo sanadka waa lagu sii sheegaya waqtigaas aad ku qoran tahay baa lagu dhan lagu sheegaya marka bishaana de kullayba waad sabad ku sugaysa waayahay markii sanadkaasi ku gaadho ayaad sabadkiisa sasad fiisiyo ku soo qaadanaysa marka already muddo sanada ayaaba de admaanka ku hayseen inaad tagi doontaan adiga iyo fanaaniintii kale oo aad sugayseen saasoo maaha way muddada sanadka kadib waxa aad looga dareemayay baraha bulshada markii la shaaciyay inaad tagaysaan adiga iyo fanaaniintii kale aad ayay dadku in badan u soo dhaweysay adiga dareenkaagu sidee buu ahaa waqtigaasi horta runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa horta de dalkeena mooyaane wali dibad macni deenan imaaraadka iyo meelahaas gaadhay mooyaane de Yurubta uma bixin markaas ay ugu horeysay aad baan runtii ugu faraxsanaa sababta oo ah aniga saxaabteedu waxay aad iyo aad ugu badan yihiin Yurubta aad ugu badan yihiin de hablo badan oo kala baadnay dad badan oo kala baadnay baan runtii ayaan aad ugu faraxsanaa inaan dadkaygina u tago oo soo arko saxaabteedii la soo joogo runtii si fiican oo wanaagsan wana loo soo dhaweeyay waayahay taas soo dhaweynta iyo hawlahaasi waynu ku soo yara noqon doonaa halkan aad ka tagteen muddada aad sheegtay waad saacad ku sii jirteen waxaad tagtay London Heathrow International Airport ayaad ka degtay sida aan la socday oo aan baraha bulshada kala socday waqtigaasi waxay ahayd markii kugu horeysay ee qaaradda Yurub tagto gaar ahaan wadankaasi Ingiriiska jawigii aad la kulantay jawi nooceeya buu ahaa markaanu meesha ka degnay dhaxanta soo yara galaysa oo aad ugu badnay laakiin inaga halkan markaynu ka tagno xagga marka la tago inaga waxay noo noqonaysaa dhaxan aad u badan waayo inagu dhaxan fara badan ma aragno oo sida UK oo kala marka dhaxantii baa soo galaysay dabadna diyaaradii markaanu ka degnayna waxaan ku yiri meeshii baanu marnay dabadeetana banaankii baanu u baxnay intaasoo qof baa nagu sugayay Soomaaliland leh oo Soomaalida kala dhacid walba leh ayaa meeshii aad iyo aad noogu yimi oo la soo dhaweeyay oo baxyaadana la soo wadigay TV-da ka daawateen runtii de markaas oo kale dareenkayga kama sheekayn karo asxaabtaydii iyo dadkii ehladii cid walba noo timi dabadna meesha laga qaaday xaafadii bana la geeyay si qurux badan baa loo soo dhaweeyay ma sha Allah saaray Soomaalidu waxay ku maamahdaa nin aan dhul marini dhaayala intii aad joogtay wadanka Ingiriiska bal maxaad waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa ee aad halkaasi ku soo aragtay maxaad nala wadaagi kartaa wallahi horta nimcooy waxyaabihii aan xagga ku soo arkay horta wax badan kama sheekayn karo meesha horta dumar bay inaga jira dumarka xagga jooga runtii dumar la qiyaasi kara wanaagooda ma jirto waxaad arkaysaa gabadh caruurtii haysata oo shaqo tagaysa oo wadaadkii cuntada u karinaysa oo caruurtii u maydhaysa oo karinaysa oo maxay ahayd oo shaqo tagaysa waayo inagu ehladii baynu dhex joognaa shaqaalaynu helaynaa dumar raaxaystay baynu nahay laakiin dumar halka jooga gabadhu way shaqo tagaysaa caruurtii bay u karinaysaa iskuulkii bay geynaysaa way ka soo celinaysaa haddana hawl badan bay dumarkaasi runtii aad iyo aad u hayaan markaas haddana waliba waxa u dheer dadka xaggan ka yimaada gabadh waliba isku xilqaamaysaa oo waxay soranaysaa dadkii xagga ka yimid oo dad aad isku jecel dadkii xagga ka yimid wallahi dadkii dad bay noo yimid martiye bay noo yimid dabadeetana markaasay maalintay xaflad la leeyahay fanaaniintu markaa habeenka wax dhigayaan bay gabadhu markaa ama wadaadka caruurtii kaga imanaysaa ama cid kale caruurtii u geynaysa saasay dabadeetana soo dhaweyntaas oo kale waxaan kugu yiri dumarka xagga jooga marka runtii anigu mahad gaar aan u hayaayo UK sidee u dhantay ilaa goboladooda aniga sahra ahaan dumarkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wixii soo dhaweeyna dumar bay ahaayeen waayo qof ragooyo day soo dhaweeyay ma jirin marka dumarkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad bay u mahadsan yihiin dumarku way sahra markaynu halkan u kala joogno dabcan qofba sawir ayuu ka haystaa dalka Ingiriiska oo qofba sibay ugu sawiran tahay adiga sawirkii intaana tagin aad ka haysatay mid noocee uu ahaa
والله hortaan wax badan baan ka haystay waayo waxaan ka haystay nimcooy waxaan maqli jiray uun dumarku xagga ragga aad bay uga adagay oo ragga xagga jooga ikhtiyaar ma laha oo gabadhu way ka adagtay tiina waan soo arkay inkasta oo hableheenu ay dhaqankoodii haystaan oo gabadh ninkeeda aad ugu dheereynaysa runtii aanay jirin haddana mid maxay ahayd ragga qaar horta way ku fiican yihiin in iyaga laftirkooda hilfaha loo qaado loo dhiibo naynka laga sheekayni ma garatay sare ma laga yaabaa in dumarnimo ugu hiilinayso kuwii rag ahaa caawa gurmad waxaan ku dhigo horta runtii uguma hiilinaya laakiin horta dumarku waa dumar ragguna waa raggeeniyo runtii iyaga laftirkooda ma xumaynayno laakiin dumarka xaggaa jooga hiil iyo hool labadaba way leeyihiin waxaa la iiga sheekeeyey anagoo kusii soconaa shafiil meel lay dhahdo ayaan inaan inoo sheekayso waxay tiri naadee iyadu markaa taleefon bay ku hadlaysay waxay tiri naadee heblaayo xalay tole ninkeedii ciidan baa dul yimid oo ciidan baa dulkeento deedna waa la kaxeeyey deedna waa la xidhay markaa reerkii dabal ha u tagaan oo ha la soo daayay waxbaa la ma garanaysa waayo gaalada laftirkeedu wayna fahantayo in ehelnimo iyo tol iyo wax dadkii odayaashii meesha joogay inay cid ka soo dayin karaan markaa laba qof oo isku dhacay inaan inagu dhaqankaa leena way fahmeen deetana waxaan ku dhinay ayaa la xidhayo deedna way sheegtay waxay ku tiri waa kaasoo heblaaya ninkeedii baqay ugu yeedhay baan dheedaa waayo way kadeedeen baan dumarka baqa way kadeedeeni ha xidhaan baan dheedaa waayo waxa weeyaan gabadhii walaalo way karinaysaa way ordaysaa way dhalaysaa way cararaysaa intaa way shaqaynaysaa isagii wuxuu doonayaa intuu soo tabcan lahaa oo caruurtiisa gabadhiisa la korsan lahaa amba hawl kale la qaban lahaa ayaa wuxuu sameynaya hadduu doono jaad buu meel la fadhiisan horta iminka meesha jaadba ma jiro markaan anagu tagnay waxa maxay tahay la yiraahdo garaabo oo maxay tahay sida boorashka kale loo qoosho ayaa lagu qayla marka raggeeni balwad baa maxay tahay qaadkaas oo kale horta bagaa laga joojiyay way wixiina tiina xitaa iminka qaar baa iska daynaya oo aan cunayn marka runtii aanu dumarka aad baan u taageersanahay ama UK ha joogaan ama wadanada kale ha joogaan inay dumarkooda la shaqeeyaan oo awlaadooda la korsadaan aad baan u jecelahay laakiin waa laga helayno qaar baa wax kale ba arkaya marka dumarka wax la sutida u qabta rag oo iska celiya inta halka joogta marka waxaynu leenahay raggu dabcan umooda dhame waa qayb kamid ah horta fareenuba nimcay masna nin waxaad arkaysaa gabadhiisa la shaqeynayo oo caruurtii la hayo oo maxay tahay la dadaalaya waayo wadan gaalaad bay joogaano dalkoodii ma joogaan marka ilmihi haddaan dhaqankii la barin oon diintii la barin oo aan maxay ahayd caruurtii aabahood aanu maxay tahay garab qaban gabadhii gabadhii caruurtu way dayaxmayaan way gabadhu mabriiskoodii bay soo shaqaynaysaa ma hawl bay gelaysaa ma caruurtii bay ayay maxay tahay haynaysaa dumar badan baa jira caruurtooda iska korsaday raggu iskaga tageen marka maxay ahayd horta halkanba way jiraan laakiin inagu halkan dalkeeni baynu joognaayo waxaan ku uri cidna ma baahnid waayo ehladii baa kuu dhow amba isaga ehelkiisii baa kuu dhow halkaa laakiin labadii qof ee isqabay ehelkoodii wax laga yaaba inay ka fog yihiin marka wax badan baa jira UK marka waxaan leeyahay ragguna dumarkooda iska xajistaan caruurta la koriyaan waayo wadan gaalaad bay joogaan wadankoodii maaha marka garab galaan baan leeyahay way saaray waqtigaas aad tagtay Ingiriiska kullay waqti qabobuhu uu soo dhacayo ayay ahayd dalkeena Soomaaliland oo xagga jawiga runtii hodan ku ah jawi aad u fiican oo nadiif ah oo caafimaad bal ka waran markaad halkan ka tagtay maxaad la kulantay isbedel dhanka cimilada ah wallahi nimco horta waan ku xanuunsaday meesha markaan tagay qabowga kuma xanuunsan laakiin cuntadii baan cuni waayay markaan meesha tagay hawada markaa isbedelkii weeye dabadeetana cuntadii baan la qabsan waayay jawigii baan la qabsan waayay dhaxantii baan la qabsan waayay waxaa laga yaabaa habeenkan xaflad la ahayn aan dirqi ku tago sidaan halkaa ugu jiro hiid baa la dhaw guriga lagu shido samboor baan ka qaaday oo maxay ahayd markii hiidkaa la shido samboor baan ka qaaday aan ku xanuunsaday dhaxanta markaan banaanka u baxo waan qarqarayaa dabadeetana markaan yar joogay ma tolo ma iska noqotaa deedna hablii bay yiri waxa geed tagaysaa iminku baaba timide marka wallaahi anigu runtii horta maan deganaadeen haddaan anigu saaraan haddii xitaa la igu dhaday iska deg maan deganaadeen kuma doorsadeen dalka hooyo kuma doorsadeen halkayganaan wixii ilaahay u siiyay alxamdulillah
wasaaray intaa waa loo sii socdaa waynaga arkaynaa in la tahriibo aad waliba loo beegsado wadamada Yurubta dalka Ingiriiskana wuxuu kamid yahay dalalka aadka loo sii jecel yahay marka adigu waxaad leedahay ma baan jeclaadeen hadii la igu yiraahdo citizen British baa lagu siinaya wallahi ma jeclaadeen mana joogin maxay ahayd warno ku dhalinyartii tahriibaya oo dabeetana Yurub bay wada galayaan waliba iga dananta adigoo jawiga ku jira oo qabowga ku jira oo maxay ahayd cimiladu aad iyo aad ay u kala bedelantay bay hadana waxa lagu oranayaa laguma qaabilin 2 sanadood 3 sanadood bad iska joogaysaa waa laguma hebel lama qaabila ma heblaaya lama qaabilino ilaa imika gaaladii may qaabilin marka qofkii iska joogaanuno dabalinta la qaabilayo bal sugay inta la qaabilayna qofku malaha meelada laga shaqeysta jiro meelahaana qofka dan mar la qaabilin de ma shaqeysan karo meelo yar kale oo hoose mooyaan de maxaa qaabilaad ilaahay ba qaabilaad leh de maxay ahayd maxaa de waxa fiican qofku dalkiisa iska aamino oo halkan iska joogo dhalinyartana waxaan ku boorin lahaa de intay dalkooda dibadaha u yahay inay dalkooda iska aaminaan oo iska joogaan way halkoodan ka shaqeystaan de dhulkeenaba nimca fadhida waxay naga maqan baan jirinba alxamdulillah way saaray waxaynu soo gaarnay waqtigii nasashada xilligan oo kale nasasho ayaanu qaadanaa kulli heeso kamid ah heesaha ayaanu dadka u dalabnaa si ay uga nastaan hadalka badan ee aan ku daldalayno caawa de fanaanad weyn baabay hor fadhida daawadayaashina caawa maxaad u soo doori lahayd heesa nasashada nimcooy horta in oo saxan laba heeso cusub oo nimka qaaday baan u soo doori lahaa dadka marka labada heesna horta darag abwaanaan baa la arki jiray inaan abwaanada ba sameysay Yasmin Ahmed baa la yiraahdaa labada heesna iyada sameysay marka mid waxay tiraahdaa waan ku duceeyaa marka de kulli dad dadweynuhu bay kulli ka bay kulli ka turjubaysaa de abwaanku dadweynuhu ka turjubaa ta kalena u caleema saaro baa la yiraahdaa marka waxaan loo caleema saaran yahay de malaha waxaan isruun kulli dumarku bay ka turjubaysaayo dumarkiiba de ragii waa tan deel inagu intixaamay in 2 3 iyo 4 iyo gursidaan moogtay marka sidii sheekadii markii dhawta wadaadku inooga sheekeynayay marka waxa weeyaan bomba kulli de heeska marka turjubada la turjubo waxay ka hadlaysaa inay deeleedahay dumarka kale la joogto de u caleema saaro oo dusha ku sido ma garata ayuu buu heesku ka hadlaya ma garanaysa labada hees baan soo doori lahaa dadka ta kalena waan ku duceeyaa bay leedahayo de mala xaaji de rag bay u ducaa bay kamid de kulli u ducaynayso dadkaas oo nin wanaagsan baa jiro oo gabadhiisa iska dhaqanayo oo wanaagsan oo aan ama laba guursanina ama 3 guursanina tiisaas kun iska haysta horta de diinteena banaysay oo in rag 4 guursadaan diinteena banaysay laakiin waqtigan imika la joogo maxay ahayd tooy qof xaq iska ilaalinaya uu yariyay oo macnaheedu de markuu guursado 2 iyo 3 xaq iska ilaalinaya uu yariyay marka dabadeetana waa la iska gurguursanayaa marka inay iska gurgursadaan maayo inay wax u kala dayaan ma garanaysaa marka taasi ka turjubaysa calafka ka xoog weyn inkastoo ku caashaqay sida walka caanaha laabtayda ku culay caashaqa sidiisaba calafka ka xoog weyn inkastoo ku caashaqay sida walka caanaha laabtayda ku culay عسومد وما بحن عن كلاد ورقتو عن حقرور كيو سبقي عقارنا عمر كاكو إريبا سوع
casuumad uma bixin ku calooladaygo iska sido ciddaado u caleema saarnow cashaqaaga beenta cidhibtiisu dheeray ee cawaaqibkiisuna cabkuyay kulaas yahay ku calooladaygo iska sido ciddaado u caleema saarnow cashaqaaga beenta cidhibtiisu dheeray ee cawaaqibkiisuna cabkuyay kulaas yahay waayahay haddaynu intaasi kaga soo gudubno qadarkaasi nasashada ah iyo codkaasi aadka u macaan ee Sahra Axmed Cabdilaahi Sahra Ilays daawadayaal aad baan idinka mahad celinaynaa daawashada barnaamijkeena garwaaqso Sahra adigana waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sahra waxaad ka tirsan tahay waxaad tahay fanaanad qaran waxaad ka tirsan tahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dabcan qaybta aad kaga aadan tahayna waa wacyigelinta habeenkan caawa barnaamijkeena haddii aad kaalin qaadato wacyigelinta dadweynahayna daawanaya iyo guud ahaanba dadka reer Somaliland maxaad oran lahayd kulley waqtiyaduna waa waqtina uu iska jiraa wallaahi nimcoy aad baad u mahadsantay waa run anigu wasaaraddan ka tirsanahay waxaan u qaabilsanahay dee qaybta wacyigelinta runtii horta wasaaradda waan salaamayaa wasiirkeena cusub ee imika la keenay caddaani aad baan u salaamayaa waa wasiir wanaagsan runtii madaxda kalena waan salaamayaa wariyayaasha waan salaamayaa runtii anu waxaan odhan lahaa horta marka koowaad nabadaynu xajisana kow imika doorashadii baa la gelayaa markaa maxay ahaytoy waxaan odhan lahaa dalaadalaa wax walba ha lagu wado runtii dee fanku kule wuxuu jecel yahay mar walba nabadda ayuu jecel yahay qofka fanaankuna inuu mar walba nabadda uu ka hadlaa isagay u fiican tahay dee waa fanaan baaba u yahay markaa kule anigu intaasaan ku boorin lahaa dadweynaha u sheegi lahaa dee si qurux badan aynu doorashada u gallo ayaan odhan lahaa aad iyo aad ayaad mahadsantahay kaalintaadii kolley tiray haddaynu ku noqono safarkii ingiriiska oo dabcan caawa u daaran yahay barnaamijkeenu muddo ayaad naga maqnayd 2 bilood oo dhow waaya aragnimo marka Sahra ahaan la yiraahdo maxaad kala soo kulantay ama se saameyn ma ku yeeshay safarkaasi noloshaadii caadiga ahayd wallaahi horta waa runo saameyn uu ku yeeshay oo dee horta kulley markaan xaggii London tagay aan maxay ahayd wixii runtii dee dadkii meesha joogay horta runtii aad bay noo soo dhaweeyeen laakiin markaan halkan imiday dadku wax kala day ma oranayaan dee Sahra London baad ka timidee maxaad ka keentay Sahra London maxaad ka keentay qaar bay igu yiraahdeen Sahra wadaad ma ka soo heshay iyo qaar bay igu yiraahdeen Sahra dee maxaad keentay waxaan idhi waxba maan keenin baan idhi laakiin dee mar haddaan anigoo nabadana soo noqday dadkaygiioo nabadana aan soo arkay runtii hanti aan leeyahayna aan runtii ka samaystay dee kulley wax kaloo ka keeni laana ma jiro dee wadaadkana baa kuri xaggaa looma doontee dee raggeena xagga joogo rag halkan ay joogaan baan ku iri xaggaaba way joogaan laakiin dee kuwaas dumar bay wada qabaan inaga halkan wala soo tumayay dee halkan nimcadu dhulkeenay fadhidaa ma dee rag halkan way joogaan baan marka maxay ahayd tooy wax far badan dee markaasan dabadeetana aniguna runtii iska bulshaaweed baan ahay aad iyo dad badan baan asxaab lahay dee tana markaan halkan mid aad baan u warware waxaan talo maxaad samaysaa Sahra inta yar lacagta talo dadka ma iska siisaa naameenay hanti siiso maya dadka dabadeetana dadkii intii aanu definaantii intii aanu asxaabta ahayn baanu yeero waxa ku uri maxay yeela intan ma iska cunaayo ma iska qaybsanaa dadana gabadh canab diire la yiraahdo aad saaxiib u nahay ayaa qosasho waxay ku tiri maxaa la siinayaa dee na guri baan ku iibinin runtii dadkii UK joogay dumarkii UK joogay qofku horta marka uu maxay ahayd wixii lagu tabco aad meel ka soo saarto
dadkii aan ka imidna way ku farxeen runtii waayo dumarku ii dadaaleen maadaama ii dadaaleen ama show ha noqoto ama hawlo kaleba ha noqoto markay ii dadaaleen aniga laftarkaygu inaan meeshii wax ka soo saaro dee anigana way ii wanaagsantay dadkii aan ka imidna way u wanaagsantay inantii i kaxaysayna way maxay tahay way wanaagsan tahay ilaahay baana mahadda leh runtii tacabkana inaad khasaariso maaha dadku markay tacabku geliyaan tacabka laftarkeeda inaad khasaariso maaha marka hablihii guri bangalaa baan u iibiyey waa nimco ilaahay dee maasha allah sahre iyo maasha allah waan ku baarigaynaa mar haddii maaragtay guri weyn oo bangala oo hantiya aad yeelatay aad baan ugu faraxsanahay gaar ahaan aniga nimco ahaan waanan soo dhaweynayaa waxaad i xasuusisay waraysi aad u xiiso badnaa oo xuseen cabdilaahi deeqsi agaasimaha barnaamijyada agaasimahaygu uu ka qaaday boon xirsi maruu sidan oo kale u tegay dalka ingiriiska oo dabcan ayaan ay kaxaysay sheekada waxaa ku jirto aad u xiiso badnayd in uu dabcan lacagtii suuriyadii iyo maaragtay wixii uu soo qaatay lacag 40 kun gaadhaysa lacagtii wuxuu yidhi mudday igu lulmaysay intan joogayba aad bay igu lulmaysay talow ma dahabshiil baad la noqotaa sheer talow xaggeed geysaa lacagtii talow ma gaari weyn baad ku iibsataa waxyaabo badan baa runtii ku soo dhacay maskaxdiisa marka adiga ma kugu lulantay Sahraay oo hawl noocaas oo kala ma gashay markii maaragtay kharashkeer isku hagaagay wallahi nimco way maxay tahay aad bay igu lulantay dadkii aan u tagayna runtii waxay yiraahdeen maxaad Sahraay yeeli doontaayo waxaan ku wallahi horta anigu hadafkaygu waa meel waxaan doonayaa inaan hanti ka samaysto hadii la yiraahdo dabadeetana lacagta markii showyadii iyo wixii aan dhignay iyo wixii suuriyadii wixii dalay keenay ay dabadeetana aan runtii maan de aad baa macnaheedu sugumaan taxallujin laakiin dumarkii baa yeelana Sahraay maxay tahay caruurtii walaalahantii dumarka halka jooga aad bay runtii kugu dadaaleen aad bay kugu warwarayaan dabadeetana lacagtii markii aan soo baxay baa dahabshil la soo dhigay marka dhowr qof baa isku qoriyo lacag badan de lama ogola meesha la soo dhigo deetana hablii baan ku dhino lacagtu imisay noqotay walaa markaas igu intaasay noqotay oo markaa dabeetana dahabshil baa imka lagu shubayaa waa haga aan soo baxnay hablii baan ku neeraheen de inta soo lacag tolo dahabshil muxuu yeeli doonaa marka xagaa tago bilayla yaabaa way igu raada Sahraay lacagtan xageed ka keentay markaas ayaan igu tiri dawlad way ogyiin inaad London tagtay Sahraay way iska caadi runtii dahabshilna anigu waxaan de akoon baan ku leeyahay dahabshil dawo hadiye jeeraalana lacagaha dawaan dhigtaa kulliba ma garanaysaa deetana markaan halkan imi ayaan lacagtii soo saaray markaasaan haddana albaab korteed markaan la marayaaban akoonkii ku celiyey waxaan horta walaal gurigaan soo helay ku celi dabadeetana halkan maxay ahayd dahabshiilkan hoose ee halkan baan raamaagteeda ku yaalaa ayana yaran qona guduuda carweyda u tahay baa joogta damiyad soo celis markaan idahaayo ku celi baan oo iskaga jirtay dabadeetana maalintii markaan gurigii iibinay ayaan dabadeetana horta markaasaan warwarkayga bahay laakiin waxaan aad u jecelahay dadku in aniga wax la cunaan asxaab far badanna waa leer runtii oo dadka wax wada cunana waan jecelahay laakiin qof kasta oo fanaana ama qof kasta oo asxaabnahay qof kastaaba wixii guri maadaama hanti siisay aad baan Sahraay ugu faraxsanahay runtii iyaguna aad bay u mahadsan yihiin dadkii soo shaqeeyayna aad bay u mahadsan yihiin inantii sababtan lahayd ayaana aad bay u mahadsan tahay dumarkii UK joogayna aad baan runtii hadii jaraalo ugu mahadnaqayaa waayahay gabagabadii ayaynu taaganahay dabcan mahadnaqay waad dhamaysay kelmadda ugu dambaysa maxaad oran lahayd nimcay waxaan oran lahaa runtii horta anigu Sahra ahaan waxaan jecelahay kulley iyo kulleyba anigu horta dalkayga hooyana anigu aad u jecelahay dadka dibadaha ku yaacayna waxaan oran lahaa waxba ku yaacin dalkiina iska aamina waxa kale oo aan oran lahaa halkeena inaynu aamino darteena inaynu ka shaqeysano halkeenaba nimca taala dee dhulka cadee la hagaajistay la qurxiyay rag sidiinaaba dee hagaajisto qurxistay dee inaguna dalkeena aynu qurxisano aynu dalkeena aamina baan anigu oran lahaa waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sahra Axmed Cabdilaahi Sahra Ilays oo waqti badan soo siisay barnaamijkeena daawadayaal idinka laftirkiina mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idinka mahad celinayaa waqtiga qaaliga ah ee aad na siiseen inaad
na daawataan oo la socotaan barnaamijkeena waxa kale oo aan si weyn ugu mahad celinayaa Maxamed Deeq Axmed Cali oo ah kamarmaanka iyo farsamayaqaanka barnaamijkeena hagaya waxaanu leenahay jazaakumullahu khayr daawadayaal tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno aniga iyo Sahra dhamaantayo waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad geliyo Sociedade nabada